وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن جنة هي المأوى. آيادا aan soo xigtay waa suuratu annaasicaad aayadda 4aad. erayadani maasha allah markaad dul istaagtid ama aad akhrisid meesha waxaa kala soo baxaysaa waxaa kaaga dhadhamaya in naftaada lala hadlayo ayaa kaaga dhadhamaya oo marka lagu leeyahay وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى waxaa lala hadlayaa naftaada ama nafteena ayaa lala hadlayaa qofkii ka cabsada oo ka baqa istaagidda rabbigiisa iyo xisaabtiisa naftana ka reeba hawada iyo rabitaanka xunxun. taasi waxay ka dhigan tahay qofka xasuusta inuu maalin maalmaha ka mid ah hor istaagi doono alle subxaanahu watacaala si uu u xisaabiyo cabsidaasi waxay ku abuurtaa inuu fogaado waxyaalaha xunxun ee Ilaahay uu ka reebay iyo amarka Allana inuu u hoggaansanaado. hawada waxay naftu si degdeg ah u jeceshahay ama daba iska aragtay naftu waxay iska jeceshahay inay waxyaalo badan iska raacdo iska daba orado waxyaalo badan bay ku jeclaysanaysaa moogtahay ama uu damco ay xumaan noqon karto. tusaale ahaan caajiska cibaadada xanta xaragada xad-dhaafka ama hantida si khaldan loo raadiyo qofka la imaaday kan maamulay naftiisa aan ogolaanin inay qaadato wadada iyadoo ay jeclaatay midda alle ka fog balse ku xakameeya shareecada iyo wanaagga Allah. ayadana qofkaasna maxaa layidhi fa ina jannata hiya alma'waa maciise jannooyin ayaa ahaaday meeshii ay naftaas isxakamaysa ay ku dambeynayso oo naftaa xumihii oo dhan ka reebtay nafteedan meesha ay naftaas ku dambeynayso waxaa weeye fa ina aljannata hiya alma'waa waxay mutaysanaysaa janno ayay mutaysanaysaa nafta xumaanta iyo wixii xun nafta ka reebta wixii hawo oo ay naftu raacaysa ka reebta. ilaahay wuxuu ballan qaadayaa fa ina jannata hiya alma'waa janno unbay ku dambeynaysaa waayo nafta wax xun raacda iyo nafta wax wacan raacda de naftaada haddaa xakamaysid oo wixii xunba ka xakamaysid shahwada waxyaalaha khaladka waxyaalaha ilaahay aan rabin waxaas oo dhan naftaada ay aayadani kaaga digaysaa inaa naftaada ka xakamaysid hadhowtana ilaahay waxaa ka helaysaa fa ina aljannata hiya alma'waa waaba intaas oo keliyaba. aayadani waxay ina tusaysaa in guusha dhabtaa iyo helidda jannada ay leeyihiin dadka naftooda xakameeyey waxyaabaha xunxun nafta ay jeceshahay ay ka xakameeyey sababta ay wax xakameynayaan ay tahay inay xusuusan yihiin maalinta qiyaame oo qof kasta alle hortiisa u istaagayo iyagoo dee xasuusan ilaa qofku xumaanta wuxuu iska celiyaa markuu xasuusan yahay ilaah sooma markuusan xasuusanin ilaahay maba iska celin karaba. allah naga dhigo kuwii aayadaha qur-aanka ku jira alle rabbiga raxmaanka si yihiin aan u qaadano inugu anfaco. qur-aanka meesha soo rogtid waa wada aayad naftaada aad moodayso inay la hadlayso nafta muslimiinta la hadlayso. ilaahay naga dhigo kuwii anfaca ama qaato insha allah. ani inta soo fariista waxaa iga baratay duco waayo ducooyinku waxay ku horseedayaan noloshaada farxadaada qayb kamid ayay kamid yihiin. marka meesha soo fariista ducaynoo sida maanta ducada inoo sido waana qur-aanka kamid tahay
waana duco yaab leh oo wallaahi marka akhrista xataa waxaa ka dareemaysaa nafsiyan inaad degan tahay, murtaaxaad tahay, qalbiyan ayaad waxaa ka dareemaysaa inay qalbigaaga soo jiidanayso. Markaa ducadan isla eegno insha Allah. Ducadan waxay ku jirtaa suuratul Furqaan aayadda 58 waana mid kamid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee qofku Alle ugu xirnaado, uguna tawakalsado, una weyneeyo. Yacni suuradan waa aayadan waxaa leeyahay ducadani waa ducada Ilaahay si weyn uu tawakalsanayso ayay kamid tahay. Marka insha Allah kuwii ku duceysta oo akhrista oo ay ku anfacdo Allah inaga dhiga Rabbiga Raxmaanka ah. waxaadna tiraahdaa tawakalta cala alxayi alladii laa yamuutu walxamdulilaahi alladii lam yattakhid waladan walam yakun lahu shirkun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min dilla wa akbaratu takbiira. ducadan ku celi insha Allah xiliyada ducada ay ugu qurux badan tahay ku celi. wayba isla garanaa soomaha ducooyinka xiliga la akhristo waa aroorta hore salaada markaa ka baxdid iyo galabtii maqrib markaa ka baxilaa si ugu macaan yihiin ugu fiican yihiin ducooyinka lagu duceystaa. marka ducadan ku duceysa xiliyada qurux badan waana duco aad iyo aad Ilaahay ku dhaartay u macaan. waayo waxa ku garanaysaa deel maxaa ku jiraba magaca al-xay ee Ilaahay weyn ee dema aragtay xay waa magac weyn weeye. yacni magacyadaas Ilaahay markay ku jiraan ducadaas way ka qiimo badan tahay ducooyinka kale. marka ducadan waxayna leedahay tawakalta cala alxayi alladii laa yamuut walxamdulilaahi alladii lam yattakhid waladan walam yakun lahu shirkun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min dilla wa akbar takbiira. yacni waa tawakul meesha ugu dambeeyay oo Ilaahay dee la tala saarto. haddaaba ducada la akhrinayo xay ku dhex aragtid magacaas waa magac weyn oo Ilaahay u gaara oo aan cid kale u sugnaanin oo cid kale aan iska lahayn. xay waa waxaan dhimanayn weeye ama wax nool, yacni sida bini'aadankaan ahay, yacni ka duwan magac ka duwan. dee magacaas waa magac weyn oo maaragtay miisaaniyadiisa wata weeye. haddaad ducooyin ku dhex aragtidna ducadaas waa duco maaragtay tawakulkeedu aad ugu sareeyo ee ku celi insha Allah. kuwii ku celi horta ducooyinka Allah inaga dhigo. waayo ducooyinka wallaahi dadku iska dhayalsadaan maahane duco wax ka wacan oo meel yacni wax ka wacan ma jiraan. ducooyinka waa lagu meel maraa, waa hogaamiyaha naftaada. ducooyinka wax walba inoo yihiin insha Allah Ilaahay nagu baraarujiyo adinka aniga kulligeenba waa la iskaga baahan yahay moogta baraarujintee. haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee ducadani? ducadani waa habka aad Alle ugula hadasho, aad ugu muujinayso inaad adduunka iyo waxa ka jira oo dhan aad isaga kaliya u dhiibatay, tala saaratay, isla markaana aad qirayso inuu yahay keligii taliyaha caalamka oo dhan, cidna aadan la wadaagin awoodiisa. yacni ducadani Ilaahay baad tawakalsanaysaa. tawakalta xayu alladii laa yamuut. yacni Ilaahay waxaad tawakalsanaysaa allaha aan dhimanayn ee sida bini'aadanka ahayn, ee awoodda bini'aadanka aan lahayn, ee quruxda badan ayaad tawakalsanaysaa. yacni tawakul oo waxaa la imaanaysaa maaragtay buuxa oo aadan cidna la wadaajinin Ilaahay. markaas ayay ducadani tawakulka inaa Ilaahay maaragtay tala saaratid. markaad ogaatid inuu ku daryeelayo Alleena Rabbiga Raxmaanka ee aan dhimanayn, ee awoodda leh, walwalka iyo cabsida waxaa ku hayo dhan way kaa baaba'ayaan. yacni haddaad bini'aadan tala saaratid ama bini'aadan wuxuu sheegay waxaa laga yaabaa waxaas aan qaban kari waaya inaad tiraahdo. laakiin markaad Ilaahay tawakalsatid ee Ilaahay tala saaratid waxaa helaysaa kalsooni iyo niyad qabow. marka insha Allah ducadan ku duceyso waa adigoo maaragtay marka Ilaahay u timaadid wax walba u sheegatid Ilaahay aad tawakalsatid waa adigoo kalsoonidaadii dee Ilaahay oo dhan baad u dhiibtay. waad xoojinaysaa kalsoonidaada
aad ku qabtid in alle maaragtay waxaana u dhibatay mashiin u dhibatay uu ku kufeynayo.